بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤالا ربعنا كجوابه. سؤال شنو أي تهي شيخو أنا ما رأيتي قرؤ قرآن كمدميو qur-aanka guriga kama damiyo, laakiin weli dhibaatada guriga wayna dhex taallaa. Guriga dhibaatadiis weli ma aysan dhammaanin. Guriga nadaafadiisa ma fiicno. Guriga maaragtay nadalka ayaa ka halaabo. Guriga dagaalkiis ayaa badan. Dadka guriga degan ma heshiiyaan. Waxyaalo dhibaato badan ayaan maaragtay guriga kala kulanay. Waxyaalo ayaa iska dhumaayo. guriga dhexdiisa ku dhumaayo, mana ogno meelay taalo. Lacagaa iska bixiyso, dahabaa dhumaayo, waraaqooyinaa dhumaayo, naastaraha halaabayo, maaragtay TV-ga naga halaabayo, wax waliba oo guriga electroniga waa naga halaabayo. Qur-aan 24 saac kama damo. Naastaraha asaa isku soo celceliyo oo maaragtay maanta oo dhan wuu shaqeynaya. Faatixada uu kasoo bilaaba ilaa barabinaas oo aadaya. Maxaa sheekha jiro? Maxaa dhibkaani? Muxuu dhibkan ugu istaagi waay? horta su-aal aad iyo aad u fiican waaye oo maaragtay in laga fikiro u baahan. horta waxa waaye qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa fiican dadka guriga degan inay maaragtay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti ay geliyaan, waqti inay siiyaan. qofka ma aha maaragtay kitaabka ilaahay inuu maanta dhan iska daarnaado oo asagana gacanta uu ku qabanaynin, uusan kala furaynin, uusan akhrinaynin. aslka waxa ugu aslisan ugu saxsan waxa waa qofkii kitaabka ilaahay inuu kala furo oo fariisto oo akhristo. ta'thiirna kaas ayay leedahay. qofka ta'thiir waxay ku sameynaysaa iimaankiisa ayaa ziyaadanaya, nuurkiisa ayaa ziyaada noqonaya. لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر إلهي سبحانه وتعالى اطمئنان أيو قفك سينا راحة أيو سينا حسلون أيو دريمايا. وحلو الله إلهي سبحانه وتعالى وطلق لي أنت مسلمين تماركتي واحد أركي حساب مسلمين ما شاء الله أو ماركت زمن كان جرو وحان أو ماركت أمراض النفسية سايكولوجي ماركتي مرض النفسي وحيالا سكون ماركي يسيد واحد أركي يعني وحان أصغى بكتابك إلهي سبحانه وتعالى رحمة إلهي سبحانه وتعالى أنا ونوسو دجي ونبينا عليه الصلاة والسلام وكسو دجي وأنا ونوسو قبيه marka qofka ma arag quraanka ku dhagan waxaad arkaysaa nolol sacaada inuu haysto, nolol xasiloon inuu haysto, nuurkiis inuu badan yahay, iimaankiis inuu ziyaada yahay daa'iman. marka waxa waa quraanku waa inaad adi kala furtaa oo akhrisaa. marka waxa waaye yani waxaad arkaysaa yani dadka badanaa dhibkaan haysto waa tii hadda koran duruusta aan ku sheegnay, jinni intii la keeno jinniga guriga lagu soo xirayaa sidii sijin oo kale. qof jeel ku jiro oo kale ayuu yahay, guriga ayuu fadhiyaa, sixirkaas ayuu ilaalinaya oo guriga yaallo sidoo uusan ku baabi'in. marka wuxuu xooga saarayaa mar walibo inuu gurigaas nuur soo gelin. waxaad arkaysaa gurigaas muusiga ka socdo, filin la fiirsanayo, heesta waa loo dheeraysiinayaa. dadka oo guriga degan taacida cibaadadooda ma badna, guriga ma qof dukanaya waa yaryahay. waxaad arkaysaa macsiyada aad ay ugu badan tahay. dad oo waxaa imaanaya oon adib lahayn oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala jidka ilaahay subxaana wa tacaala ka dheer ayaa soo ziyaarana ahlulkhayr ahlul-iimaan ma arkaysid. marka waxa waaye guriga oo saas oo kale marka shayaatiinta aad iyo aad ayay u jecel yihiin, aad iyo aad ay usoo degaan, waxay khasi karaan ayay khasayaan. marka waxa waaye waxaad arkaysaa qofka maaragtay gurigaas degan oo qur-aanka maaragtay aqrinayo oo kitaabka la furaayo, badanaa asigaa dhib soo gaaro haddaysan dadka guriga jooga aan la shaqaynaynin oo dadka ahlul khayr ay uusan ahayn oo gurigana jinni ku jiro oo sixirna ku jiro. laakiin su-aasha waxay imaanaysaa sheeqow, haddii adiga aada leedahay naasara la daarayo faa'iido ma leh oo maaragtay wax uu faa'iido keenayo ma leh, haddaad leedahay naasaraha markaan qur-aanka aan ku daarno naasaraha maxaa noolaga jibiyaa, naasaraha muxuu u halaabaa? waa su-aal fiican waay. naasaraha waxaa loo haleeyaa oo loo jibiyaa dadka guriga degan. ayaa dhici karta qof ka mid ah guriga inuu aayad dhegaystay asoo meesha sii maraayo oo qolka soo galay, aayaddii ayuu dhegaystay, aayadda macnaheed ayuu fahmay, ta'thiir ayay ku samaysay, qalbigiisa ayay ta'thiir ku samaysay.
aayaddii ayaa nuur ay kasoo saartay jirkiisa. marka nuurkaas iimaankaas qalbigiis galay ayaa la diidaya inuu yimaado, laanna qofka bani aadam waa dareen ayuu leeyahay, kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala dareen ayuu siinayaa. marka shayddaankan oo gaalka oo guriga idinla joogo waxaasoo dhibaya qofka inuu iimaanka ziyaado. marka waxaa lagu dadaalayaa inuu naasarahaas maaragtay in la hadlayo. hadda waxaan usoo qaadan karnaa mithaal ahaan, yani qof hadduu keeno biyihii hadduu naasaraha agdhigo oo dhaho kitaabka naasaraha agdhigo oo qur-aanka oo ku daaro, ma dhihi karnaa biyahan waa tahliil? ma cabi karaa? maya, waa tahliil ma noqon karo. waa biyo naasiraha, qur-aanka naasira ayuu kasoo baxay oo qof bani aadam meesha ma fadhinin oo kuma aqrinayn qur-aanka. marka waa saas oo kale. marka qur-aanka oo naasiraha laga daaraayo ta'thiir fiican maku siinaayo, ta'thiir fiican kuma siinaayo. hadalkeena ayaan qalad loo fahmin. qur-aanka in guriga lagu daaro kama soo horjeedno, way fiican tahay aada iyo aad. intaadan adiga ma aragtay heese iyo wax aad ku daaro leh, qur-aanka ilaahay daaro, laa shaka fiih. laakiin waxa waaye sixirkii xal ma u helaa waay, xal ma u yahay. jinniga guriga maka saaraya, jirada haysa dadka maka baxaya, maya waay. marka waa kitaabka ilaahay waa inaad gacanta lagu qabtaa. haddaadan aqrin karin waa inaad naasiraha ma aragta dhagaha gashataa, waa inaad dhagaha gashataa oo aad dhegeysataa, aad fariisataa, aad waqti aad siisaa. marka waxa waaye waxaa fiican qofka inuu isku wado qur-aanka guriga ka daar, adigana waa inaad waqti u yeeshaa. kitaabka ilaahay waa inaad kala furtaa, aad akhrisaa. haddaad ratid inaad caafimaadid, haddaad ratid inuu gurigaaga sixirka ka baxo, haddaad ratid shayddaankan guriga idinla degan oo guriga qasaa inuu guriga ka baxo, waa inaad maaragtay aad wixii aad si fiican si saxa u qabataa. haddii kale waxa waa dhibkan weliga wuu ku haynaya. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaa inuu kelmadan aan soo jeedinin inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajir naga siiyo. subxaanaka allahuma bixamdik, ashhadu an laa ilaaha ilaa ant, nastakfiruka wanatuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.